asalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada channelka waxaan rabaa inaan idiin sii wado programkeeni ahaa waalidka iyo caruurta iyo isfahankooda siduu kusii fiicnaan karaa. sidaa ognahaba haddii aan waalidiin nahay maanta oo dhan waxaan la kulmaynaa ilmo ooynaya, ilmaha hadalkaaga maqlaynin, ilmo markaa wax u sheegta ku dhagaysanaynin ama aanan ku fahmaynin. marka maxaa loo baahan yahay maanta oo dhan haddii ay dhacdo conflict ama khilaaf markuu dhaco, waxaa loo baahan yahay adiga inaad isku fikirtid maxay tahay khilaafkan xaguu ka imaanaya. marka waxaan idinkaga sheekayn doonaa videogan sida ay ku development garaynayso brainkeena, sida maaragtay maskaxdeena ay u shaqaynayso si ilmahaas aad u fahantid. mar walba horta haddii maaragta la kulantid dhibaato ama ilmahaaga ha yaraado ama ha weynaado, mar walba waxaa fiican inaa khilaafka ama dhibaatada meesha ka dhacayso isdhahdid adiga maskaxiyan, bal yaanan u qaadanin dhibaato, aan u qaato interest cusub cunugayga inuu develop gareeye. maxaa ku dhacay ilmahayga inuu sidaan u develop gareeye, maxaa ku dhacay ilmahayga inuu sidaan oo behaviorkiisa noqdo inuu sidaan isku bedelay, maxay tahay waxa ka keenaya ooyinta, maxay tahay wax ka keenaya xanaaqa. marka su-aalo badan inaa isweydiisid adigoo isaga maaragtay soo dhaweysanayo oonan iska fogeynaynin. marka waxaa isku dayaysaa inaa fiirisid interestkiisa waa maxay, muxuu hadda jecel yahay, maxay tahay waxa isbedelka intuu ka imaaday. so waxa waaye wax fakir dheeraad u baahan, adigana markaasaas u fakaraysid ilmahaagana way kula fakari doonaan insha allah. marka waxaa loo baahan yahay time inaa siisid, waqti badanna aa siisid. sidaan ognahaba ilmaha markay yaryar yihiin ilaa iyo muddo waxay u baahan yihiin waalidka wax badan inay waqti la qaataan. marka adiga ilmahaaga waxay ka arkaan badanaana samayn doonaan. adiga haddii aa qaylisid iyaga way qaylinayaan, adiga haddii aa xanaaq badan tahay iyaga way xanaaqayaan. marka adiga waxaa u tahay model, role model aa u tahay. role modelkaas marka waxay ilmahaaga rabi lahayd inay sameeyaan adiga ha kaa arkaano marka hore. markay adiga kaa arkaan way kugu daysanayaan biidnillaah, wayna kuu fiicnaan doonaan insha allah. marka wax badan waxaa loo baahan yahay sabar inaad la imaadid, inaad ilmahaaga la fariisatid, inaad la sheekaysatid. marka ilmahaaga 5 sano markii ay jiraan maskaxdooda 90% ay dhammaystiran tahay, laakiin ma og tahay ilaa 25 sano aan ka noqonayno maskaxdeena ma wada dhammaystirna. ilaahay subxaanahu wa tacaala maskaxdeena qaab wuxuu u sameeyey inay tartiib ay u dhammaystiranto. marka maskaxdeena markay bilaabanayso ilaa ay markay dhammaystirmayso processka ay marayso dhan, waxaan ka ogaana qaybta caafimaadka ama science-ka wuxuu noo sheegayaa inay gadaal ka bilaabanayso brain development-keena oo hore ay imaanayso. marka qaybta hore oo loogu talagalay in laga qaato decisions ama go'aamo laga gaaro, in emotionally qofku uu iscaawin karo, in ooyinta meeshay ka imaanayso uu fahmi karo, inuu plan samaysan karo ama jadwal uu samaysan karo, uu la socon karo. waxaasoo dhan waxay ka socdaan qaybta hore, brainkeena qaybta hore, maskaxdeena qaybta hore. laakiin ilmaha markay yaryar yihiin sida idiin sheegay 90% kaliya ay dhammaystiran yihiin maskaxdooda. marka waxaa loo baahan yahay ilmaha inaad u qaadatid time badan ood fahansiisid emotionkooda waxyaabahay dareemayaan. ilmahaaga inaad bartid techniqueska la isku dejiyo, haddii ay xanaaqaan, haddii ay ooyaan inaad la hadashid, inaad waqti la qaadatid, inaad neefta qaado ee sii day dhahdid, inay neefta sanka ka qaataan afkana ka sii dayaan. waxaana ugu muhiimsanaa mar walba waxay tahay ilmahaaga inaad u ducaysid, hortoodan ugu ducaysid si ay aamiin ya allah ay kuu dhahaan adigoo gacmaha kor u taagayo. markay ku arkaan way kugu daysanayaan. hanaga iloobinina subscribe, like and share. haddii aad videogan wax ka faa'iidana commentka hoose noogu soo qor insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.